BBC da labada kun iyo todobada ayaad ka tagtay hadda sababta ugu weyn ilaa hadda aan ka maqalnay waxay tahay maadaama muddo dheer aad joogtay oo isbedel loo baahday sabab kale ma jiraan wallahi walaal horta bini aadamka waxaan qabaa sidiisaba waxaan change ka leeyahay waa u fiican yahay sax oo 17 sano de waqti yar ma sax oo isku mid soo fadhiisanayso isku shaqo qabanaysid dad asxaabtii laakiin de bini aadamku waa ku kala duwan dabciga saasa sax waxa jiray de nin aad iyo aad qiimo ugu lahaa warbaahinta Soomaalida imika shaqada uu ka fadhiistay oo ilaahay raalliha ka ahaaday Cabdullaahi Xaaji Layla ninkayga intan leeg oo sanad jiru BBC day 67kii buu yimi markaa inkastoo tababar loo diray 69kii buu shaqaale ka noqday de Cabdullaahi waa uu shaqeynay 17 sanadood qolada mararka qaarkood la igu tiriyo xageeda aad ka khaldan tahay waa taasoo teamkii aan la shaqeynay baa mar la soconaya ha marka dadku markay saa yiraahdaan teamku maqliyay ayaan ku dhahay taasoo ka reebo oo waxa tiraahdaa teamku maqliyay laakiin ilaa hadda marka laakiin su'aashaadii hadda ka jawaabo in yar haddaad ii ogolaato inaan dib ugu yara noqdo markaan bilaabay waxaan ugu tegay laanta af Soomaaliga oo aan aad iyo aadna maaragtay markaan xusuustaan dareen farxad leh ku eega raggii iyo gabdhihii ugu wanaagsanaa sidaan anigu qabo warbaahinta Soomaalida dad wada mudakara dad wada xirfadoodu maaragtay iyo hibadooduba ay ahayd halka ugu sarreysa Yusuf Xasan oo kale kama kuuji xildhibaanka ayaan ugu tegay de magacyada ka geeyoon maayir adigu dad sidaas ay ahaayeen oo wax badan aan ka bartay meeshii sidaa ahayd hadaan su'aashaada ka jawaab ayaa wixii wadanka dhan burburiyay ee Soomaaliya de loo oran jiray ayaa halkii noogu yimi BBC wax wadanka burburiyay qabyaalad iyo iyo intii dhaqanka Soomaalidu walaal wax fara badan oo wanaagsan uu leeyahay sida de bini'aadamka kale la midna wax badan oo qabyaaladu ka mid tahay oo eexdu ka mid tahay oo fogeyntu ka mid tahay oo nacaybku ka mid waxaasina waxa weeyaan waa waxa de Soomaali halka dhigay wixii baa xafiiskii noogu yimi marka aniga waa ila noqon weyday inaan joogo aniga cawka waas kaga tagnay ilaahay oo naxariistay fiyoodaan tagnay oo markaa cusbayd oo dib loo furay dabadeedna fiyoodaan sanad iyadana joognay iyada dhibaato kale ma jirin ismaan mushaaraad waad la socotaa waxay ahayd Soomaalida waxay dhahaan laba walba is saarayo laba tagoogo ismaan saarin ismaan oran inta Washington DC u shaqo tagtaan ayay mushaar waay marka daadu waqtiyaas karaysa qof family maarta ka dambeeyo caruurtii waxbarashada iskuul iyo isbitaal caafimaad loo baahan yahay oo haddana mushaharkii de 2-3 bilood mar soo raagayo ta kale waxa noo dheeraa walaal state-ka aanu ka shaqeynaynay iyo kaanu deganay Virginia ayaanu deganay Washington DC na waa ka shaqeynaynay waa meelaha ugu qaalisan Mareykanka ay ka mid yihiin haddaan ahaynba meelaha ugu qaalisan marka qofka producer-kaana wuxuu aniga aragtidayda shaqooyinka kale ay kaga duwan tahay waa inaad hesho waqti aad reflection ku samayso waqti aad ku fikirto waqti aad jawi wanaagsan television ku daawatid sida kale soo baxdid nin kiradii loo haysto gormo fikiraya marka waxaan iyagana waxaan ku waa barakeysantiina sax nabadgeliyo deedna saasaan kaga nimo